war degdeg daawadayaal ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa saaki howlgalladii ugu ballaarnaa waxa ay ka fuliyeen deegaano iyo tuulooyin hoostaga gobolka Shabeellaha Dhexe. Waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo u daatay fariisimihii nabadgelyadu ay ku lahaayeen tuulooyin hoostaga deegaanka Cali Fooldheere ee gobolka Shabeellaha Dhexe. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa wada dhaqdhaqaaqyadii ugu xoogganaa oo ay ka wadaan deegaano iyo tuulooyin dhaca gobolka Shabeellaha Dhexe waxayna ciidanku ay ku guuleysteen inay qaarijiyaan horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan nabadgelyada Al-Shabaab. sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa ay ku guuleysteen inay burburiyaan tiro difaaci ah oo nabadgelyadu halkaasi ay ku lahaayeen waxayna ciidamadu ay gacanta ku soo dhigeen hub iyo saanado military oo ay ka careen nabadgelyada Al-Shabaab. Shabeellaha Dhexe haddana dul istaagno saakay waxa ka soconaya howlgalladii ugu ballaarnaa oo ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. ciidanka ayaa waxa ay dhowr jaha ay ka weerareen fariisimo nabadgelyadu ay ku lahaayeen tuulooyin hoostaga Jabadgodan ee Cali Fooldheere degmada aadan iyo tuulooyin hoostaga masaajid Cali Guduuda. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa saaka dagaalkii ugu cuslaa waxa ay ku galeen tuulooyin hoostaga degmada aadan iyo ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxayna ciidanku ku beegsadeen halkaasi goob nabadgelyadu ay ku dhuumaaleysanayeen. guud ahaan gobolada dalka qaasatan Shabeellaha Dhexe ciidanku waxa ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyadii ugu xoogganaa ee lagu dagaalamayo kooxda qawaarta ee Al-Shabaab iyadoona ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maalmahan ay wadeen howlgalladii ugu cuslaa oo ka dhacay deegaano iyo tuulooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa inoo xaqiijiyay in ciidanka xoogga dalka ay maalmahan ay wadeen abaabulkii ugu dambeeyay ay ka sameeyeen deegaano iyo tuulooyin dhaca gobolka Shabeellaha Dhexe waxayna ciidamadu howlgallo gaar ah ay ka sameeyeen tuulooyin deegaano hoostaga deegaanka Cadan Lixi ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Cadan Lixi waxay ka mid tahay goobihii saaka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka sameeyeen howlgallada culus waxayna ciidanka xoogga dalka ay ku guuleysteen in guud ahaan halkaas ay ka sifeeyaan kooxda nabadgelyada ah Al-Shabaab. waayadan Shabeellaha Dhexe waxa si dardar looga soconayay howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamaduna howlgalladaasi waxa ay ka gaareen guulaha waaweyn. saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa saaka inoo xaqiijiyay in ciidanku ay dhowr fariisimood oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ay kaga duuleen nabadgelyada Al-Shabaab waxaana saaka howlgal ka dhacay tuulooyin hoostaga deegaanka Cali Fooldheere lagu dilay horjoogayaal ka tirsan qawaarta Al-Shabaab. wararka sidoo kale waxay sheegayaan in ciidanku saaka howlgalladii ka dhacay Cali Fooldheere iyo tuulooyinka ku dhow lagu beegsaday goob ay ku shirsanaayeen nabadgelyada Al-Shabaab. sidoo kale duqeymo dhanka cirka ah ayaa laga sameeyay Shabeellaha Dhexe qaasatan goobaha ay ku dhuumaaleysanayaan nabadgelyada Al-Shabaab. Shabeellaha Dhexe sidoo kale waxa saakay ka socda howlgallo kale oo baaritaano ah oo ciidanku ay ka wadaan deegaano iyo tuulooyin hoostaga degmada Warshiiq waxayna ciidanku halkaasi ay ka sameeyeen howlgallo baaritaano ah. howlgallada saaka ka dhacay deegaano iyo tuulooyin dhaca gobolka Shabeellaha Dhexe way ka duwanaayeen howlgalladii hore. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo aad u tababaran qaasatan kuwa loo yaqaan Gorgor ayaa waxa ay ka soo talaabeen magaalada Muqdisho iyagoo soo gaaray deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. ciidankii ugu tirada badnaa ee Gorgor ayaa loo daabulay furimaha hore ee dagaalka qaasatan gobolka Shabeellaha Dhexe waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed halkaasi ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyadii ugu xoogganaa ee lagu dagaalamayo kooxaha qawaarta ee Al-Shabaab. Shabeellaha Dhexe waxay ka mid tahay goobaha sida gaarka ah ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uga wadaan howlgallada ballaaran waxayna ciidanku maalmahan ay dhaqdhaqaaqyadii ugu xoogganaa ee lagu dagaalamayo nabadgelyada Al-Shabaab. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale waxa ay ku guuleysteen inay saaka burburiyaan tiro difaaci ah oo nabadgelyadu halkaas ay ku lahaayeen waxayna ciidanku ay sidoo kale hub iyo saanado military ay ka soo furteen kooxda qawaarta ee Al-Shabaab. hubka saaka ciidanka ay ka soo furteen nabadgelyada Al-Shabaab ay ku soo furteen ama ay ka soo furteen deegaan aan ka fogeyn degmada aadan iyo waxa ay kala yihiin qoryaha loo yaqaan BKM-ka zabanka iyo bitim garbeedka ay ku dagaalami jireen kooxda nabadgelyada ee Al-Shabaab. saraakiisha howlgalka hogaaminaya xiriir la sameeyay ayaa waxay noo xaqiijiyeen in saakay halkaasi laga sameeyay howlgalladii ugu xoogganaa ciidankuna waxa ay ku soo furteen hub iyo saanado military oo ay ka careen nabadgelyada Al-Shabaab. sidoo kale waxa howlgalkii saaka lagu dilay ilaa 17 dhagar qabo oo ka tirsan kooxda qawaarta Al-Shabaab iyadoona ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku guuleysteen inay guud ahaanba ay burburiyaan fariisimadii kooxda nabadgelyada Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaano iyo tuulooyin dhaca gobolka Shabeellaha Dhexe. markan haddayna Shabeellaha hoose howlgalkii ugu cuslaa ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ay ka wadaan deegaano iyo tuulooyin dhaca gobolka Shabeellaha hoose. maalmahan basaad xogta sheekooyinkani muuqaaladeena baad ku arkayseen ciidanka ayaa howlgalladii ugu cuslaa waxa ay ka wadaan
jilib marka gandarshe ilaa dhanaane halkaas ciidanku dhowaan isbuucii la soo dhaafay gacanta ay ku dhigeen deegaanadaasi muddo dheer waxaa ka arrimin jiray kooxda nabadiidka ee al-shabaab waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka wadaan howlgaladii ugu cuslaa oo lagu la dagaalamay kooxda qawaarta ee al-shabaab gandarshe jilib marka ilaa dhanaane waxa ay ka mid tahay goobaha sida weyn ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uga wadaan howlgalada ballaaran iyadoo ciidanku ay ku guuleysteen in dhowr jaha oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ay ka sameeyaan howlgalo ballaaran oo lagu la dagaalamay nabadiidka al-shabaab wararka sidoo kale waxay intaas ku darayaan in ciidanku saakay hub iyo sanado military ka soo furtay nabadiidka al-shabaab wadadan dhanaane ama tuulada dhanaane ama deegaanka dhanaane waxa ay hoos tagtaa degmada marka waana wadada xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo marka oo dhanka xeebta iyadoo ciidanku maalmahan halkaasi ay ka wadeen baaritaano xoogan oo iyo howlgalo lagu la dagaalamay kooxda qawaarta ee al-shabaab saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa inoo xaqiijiyay in maalmahan ciidanku halkaasi ay ka wadeen howlgalo xoogan oo lagu la dagaalamay kooxda nabadiidka ee al-shabaab iyadoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee maalmihii ugu dambeeyay halkaasi ay ka wadeen gulafyo xoogan oo kala naqawaajay al-shabaab saraakiisha ayaa sidoo kale saaka waxay inoo xaqiijiyeen in deegaanka gandarshe ay ka sameeyeen howlgalo baaritaano ah waxayna ciidanku ay gacanta ku soo dhigeen ama ay gacanta ku soo dhigeen miinooyin waaweyn oo nabadiidku doonayeen inay ku dhibaateeyaan shacabka ku dhaqan gobolka Shabeellaha Hoose guri weyn oo ku yaal deegaanka gandarshe ay ciidamadu waxa ay ku guuleysteen inay ka soo saaraan walxaha qarxa oo nabadiidku halkaas ay ku diyaariyeen sidoo kale waxa gacanta lagu soo dhigay raggii gurigaasi jooga iyadoo ciidanka xoogga dalka oo kaashanaya kuwa nabad sugidda sirdoonka qaranka iyo ciidanka deegaanka ay si wada jir howlgalkaasi u sameeyeen jilib marka gandarshe ilaa dhanaane waxaa si xawli uga soconaya howlgalada ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maalmahanba deegaanadaasi waxaa ka socda howlgalo sifeena waxaana si wada jir howlgalada uga qayb qaadanaya ciidanka militariga xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka sida gaarka ah oo tababaran ee booliska loo yaqaan Haramcada kuwa nabad sugidda sirdoonka qaranka iyo ciidanka deegaanka ee macuusleyda ama ciidanka loo yaqaan mootoleyda waxaana guud ahaan gobolka Shabeellaha Hoose si xawli uga soconaya howlgalada ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed markan hadaynu aadna deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ayaa howlgalo ballaaran waxa ay ka sameeyeen saakay deegaan ama deegaan lagu magacaabo Teedaan halkaas oo shalay kooxda qawaarta ee al-shabaab ee weerar ku soo qaadeen ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ayaa ka difaacay deegaankaasi kooxda qawaarta ee al-shabaab iyadoo ciidanku ay ku guuleysteen in kooxdii halkaasi soo weerartay dib looga saaro halkaasi Hiiraan waxa ay ka mid tahay goobaha sida weyn ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uga wadaan howlgalada ballaaran oo lagu la dagaalamayo kooxda qawaarta ee al-shabaab waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee howlgalo ballaaran ay haatan ay ka wadaan tuulooyin hoostiga degmooyinka Maxaas iyo Muqokori iyadoo dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay halkaas ay ka soconayaan warka aynu ka helayno deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegeen ciidankii ugu badnaa ee xoogga dalka Soomaaliyeed ay haatan u diyaar garoobeen inay dagaal culus ay ku qaadaan goobaha lagu tuhunsan yahay inay ku dhuumalaysanayaan qawaarta al-shabaab goobaha ciidanka bartilmaameedku waxa ay kala yihiin degmooyinka Maxaas iyo Muqokori iyo tuulooyinka hoos yimaada waxayna ciidanku oo ciidankan aad u tiro badan ay dhaqdhaqaaqay ay ka bilaabeen tuulooyin hoostiga deegaanadaasi gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa ku sugan taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uuna cutubyo aad u tiro badan maalin ka hor uu ka sagootiyay deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan isagoo kula dardaarmay cutubyadaasi inay u dhaqaaqaan goobaha lagu tuhunsan yahay inay ku dhuumalaysanayaan qawaarta al-shabaab taliyaha ciidanka dhulka ayaa waxa uu kula dardaarmay saraakiishii ciidankaba in sida ugu dhaqsiyaha badan isbuucyada soo socda gacanta loogu dhigo goobaha ay ku dhuumalaysanayaan nabadiidka al-shabaab goobahaas oo muddooyinkii ugu dambeeyayba gacanta ay ku hayeen taliyaha ayaa saraakiisha kula dardaarmay in sida ugu dhaqsiyaha badan ciidanku ay ku dhaqaaqaan goobaha bartilmaameedka u ah qaasatan degmooyinka ay gacanta ku hayaan waxaana wararka hadda aynu ka helayno deegaanada nabadiidku ay ku sugan yihiin ay sheegayaan in kooxda argagixisada al-shabaab ay cabsi xoogan ay soo wajahday degmooyinka Maxaas iyo Muqokorina ay ka bilowdeen baraka xoogan horjoogayaasha ama xaasaska ay qabeen horjoogayaasha nabadiidka ee al-shabaab ayaa guud ahaanba faarujiyay degmooyinka Maxaas iyo Muqokori waxaana haatan cabsi xoogan ay soo wajahday horjoogayaasha ku dhuumalaysanaya degmooyinkaas iyadoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay kaabiga ku hayaan degmooyinka Maxaas iyo Muqokori halkaas oo maalmaha soo socda ciidanku ay gacanta ku dhigi doonaan daawadayaal wuxuu ku soo kordhay howlgaladan janalkeena Galcad TV ayaad ka daawan doontaan fadlan hadduu janalku ku soo gaaro subscribe inoo saar muuqaalkana meel dheer noo gaarsii waa mahadsantihiin